عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحا أين كسي دوانينا حقي فرحة عيد واجباتك رمضان تواجبك كلا صور على واجبك زكاة الفطر أما زكاة لقب حيو شركة قفك بني آدم زكاة الرؤوس زكاة البدن مقاعدنا والله يراهدا بس كذا هي أحكامته أي لا أيين كنتم مسألة كمدة استبقلين دونا إن شاء الله كل سؤالها لينسوي الديانة أنت كما بحث سيدا بدن wixii ka baxana insha Allah waynu raacin zakatul fitr waa cibaadooyinka waaweyn ee faralka ah sunna ma aha zakada iyada ah waxa lagu magacaabay zakatul fitr fidrigu waa afurki marka Ramadaan laga afuro ayaa la bixiyaa saasay ku waajibtay waxa la waajibiyay sanadii labaad ee hijrada laba sababood bay ku waajibtaa inuu qofku Ramadaanna soo gaaro ciidana soo gaaro hadduu mid uu soo gaaray qofka kuma waajibto xigmada loo farad yeelay waxa weeye duhratan lisaa'im wa du'matan lilmasaakiin masaakiintana maalmahaasa lagaga farxinaya gurmad degdeg ay u tahay qofkii soomanaana ilaahay baa ku nadiifinaya subxaanahu wa tacaala si kale haddii loo dhigo waxay u dhigantaa sujuudu sahwiga oo kale sujuudu sahwiga haddii wax ka yar si noqdaan qofka salaadiisa labadaas sujuudood baa lagu kabaa oo faa'iideynaya jabran limaa naqas wa irghaaman lishaytaan shaydaankii soo dhex galayna way ka cadhaysiinaysaa wixii kaa dhinmayna way kuu kabaysaa xigmadaha loo farad yeelay waxa sheegaya xadiidkan ibn Abbas uu warinayo waxa uu yiri farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr dhuhratan lisaa'im min al-lagwi wal-rafath wa du'matan lil-masaakiin saain horaba soo sheegnay culimada qaar kamidii waxa ay leeyihiin aayadaha tilmaamay zakat fitriga waxa kamid ah aayada suuratul a'la ku jirta ilaahay uu qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla قد أفلح وحل يباني من تزكى قفك الزكاة فدري بحيي وذكر اسم ربه مقع إلهي سنحصي الله أكبر تعيد وي فصلى كدبنته كذا صلاة عيد ترتيب تاسي وافتشيان علماء قاركود زكاة الفطر وفرل سنة معها waxay faral ku tahay oo laga bixinayaa qof wala muslima iyada shartigaas uma loo xidhaya shuruudii kale loo xidhi jiray kuwa kale ma leh waa qof kasto muslima laga bixinaya waxaan laga bixinaynin inuu gaalki sida waxa sheegaya xadiidkan saxiix ee Bukhari iyo Muslim ku sugan min xadiid ibn Umar farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr zakat fidrigu faral ka dhigay ala kulli hurrin aw 'abdin dhakarin aw untha min al-muslimiin qofkii laba kii dhadiga kii xortaha kii adoonka kii yara kii weyna isku wada dar kii walla kii miyirka qabay midal muslimiina um baqayda dadkaas inay muslimiinta kamid yihiin way qofku amaha soo soomanaado ama yaanu soomanaanin oo soomba ku waajibin waxay culimadu isweydiiyaan xamliga waxaan la yiraahdaa ama uurka jiniinka ilmaha yara caloosha ku jira janiinka miyay ku waajibaysaa waa sheegan culimada qaarkood laakiin دليل ملها حبكم واجبيان وقتك أي واجب نقنيس وامرك قرح ذو العضو ما أنت رمضان الضمبيس هبينك عيد وصاقله وقتك أستي واجب نقنيس قفك هذا بقى لنتا أنت أنا عيد وصاقلين ساه ربا إنه شاقني وحكا واجبيا متشرو سكات فدرقة نساب كيسو ويريه يعني هذا قفك سكات فدرقة اسكب حين كريا أي كو واجبيس واقف haysta wixii ka soo haray maalinka iyo habeenka wixii ku filaa habeenka iyo maalinta ciida raashin ku filan hadduu haysto wixii ka soo haray zakaat fidrigu ku bixinaya
laakiin lama odhanayo waa qani xoolo badan haysta inuu noqdo taasi waxba shardi maaha qofku waxa uu ka bixinayaa naftiisa iyo cidda biilkoodu ku waajibay sida caruurtiisa ama dadku dhalay iyo kuwii isaga dhalay waalidkii ahaa iyo xaaskiisa dadkaasa ay kugu waajib tahay inaad ka bixiso sakaat fidrigoodii welibana dee sidaa la ogyahay biilku waxa uu ku waajibaa ragga ee dumarka kuma waajibo way jiraan rag iyo dumar badan oo kala tegay oo isfuray oo caruuri ka dhaxayso caruurtaas sakaat fidrigooda aabbahood baa lagu leeyahay waladku hadduu qani yahay ilmahaaga caruurtaada qaar ka mid ah hadday xoolo haystaan oo iska maalqabeen yihiin iyagaa iska bixin karaa waxba adiga kuguma waajib ahaa ruuxa dumarka ah ee aada furtay weli haddaanay cadad bixin oo weli aada soo ceshan karayso weli biilkeedii baa markaa kugu waajibo sakaat fidrigiina isaga iyada ayuu wuxuu raacayaa ninkaa furay ee aanay weli ka cadad bixin hadday dhacdaba inuu qofku kari karayo un sakaat fidrigii dadka uu ka mas-uulkaya bar ka mid ah 10 qof buu mas-uulkayo 5 buu karayaa 5taasuu ka bixinayaa see u si kala yaryar yihiin buu uga bixinayaa xaaska iyo kuwa yaryar buu ku horreysiinaya qofku hadduu ka bixinayo sakaat fidriga cid aanay ku waajibin idankiisa lagama maarmaana adeerka edada habaryarta kuwaas waxay ku leeyihiin naga bixi sakaat fidriga dee biilkoodu kuguma waajibin marka waa inay fasax ku siiyaan ama iyagu ku amraan ay idhaahdaan waanu ku wakiilanee sakaat fidriga naga bixi dadka kuu shaqaynaya ama jaariyadaha ama caailada kula joogta ama shaqaalaha meheradaada sakaat fidrigooda laguguma lahaa leanna biilkooda waajib kugu ahayn dad baa jira had iyo jeer iyaguna ka mida muslimiinta oo agoonta kafaalo qaada oo agoonka u soo dira bishii wax cayiman oo masruuf ah sakaat fidrigiisi waajib kuma aha waayo agoonka wuu ixsaan sameynayay qadarkeeda kolkaynu eegno waa saacuna waxa weeyaan 2 kiilo iyo xoogaa waa 2176 gram waa wax ka yar 2 kiilo iyo rubuc haddii aynu markaa inagu ka siyaadino dhib ma laha saacii nebiga markii la miisaamay intaasuu noqday 4 gacmood oo dhexdhexaadaba saa loo dari jirayo intaasay noqon jireen waxa la bixinayaa waxa weeye waa wixii raashina khudradda maya sharaabkana maya wixii sharaab iyo faakahaysi iyo khudradda lama bixiyo waxa la bixinayaa wixii raashina la quuto ee cunno ahaan loo isticmaalo bariiska daqiiqda gaashan kale la yidhaahdo baastada caanaboodaha iyo wixii quud loo isticmaalo oo dhanba waxaa markaa meeshii ka baxaya waxaan la yidhaahdo sharaabka iyo faakahaysiga sida saliidaha sonkorta sharaabyada kala duwan kuwaa maya waa inuu raashin u yahay waxaa jira raashinka qayb mucallabaada oo qasaac ku jira haddii qasaaca uu raashin hagaagsan yahay oo aan dee khudradii wax ku dhex jirin isagana kiilo ahaan unbaa la tixgelinayaa 2 kiilo iyo bar qasaacaasa ayaa lagu bixin karaa caanabooduhuna aqid baa la odhan jiray waktigii nebiga oo isagana waa lagu bixin karayaa ma la kordhin karaa mise lama kordhin karo way jiraan culimada qaarkood odhanaya cibaadada lama kordhiyo sakadiina waa cibaado qowlka laakiin culimada islaamku u badan yihiin waxa weeye sidii sakadaba aynu ku soo sheegnay xoolaha sakaatu fidriga intii lagugu lahaa oo intaa aynu soo sheegnay waad ka kordhin kartaayoo 3 kiilo ayaad xisaabin kartaa sakadani maadaama ay tahay gurma degdega waa in lagu bixiyaa masaakiintu waxa isticmaalaan oo waxaa waktigii nebigana dee caadi ahaa in lagu bixiyo raashinka ayaa lagu bixin jiray markaa fiigii iskaga bixiyayo magtii iskaga bixiyayo waxaa adigu odhan maysi waxaa loo isticmaalayaa un maalmaha wixii la cuni lahaa ee la isticmaali lahaa waa jiraa imika in la yar xoojiyo culimo badan ay qabaan qowlkii ay qabeen abu xaniifa imaamu lbukhaari cumar ibnu cabdilcasiis ee ahaa lacagka lagu bixiyo qowlkaasina hadda wuu soo yaro badanaya oo caalamulislaami culimadiisa in badan oo ka midii waxay leeyihin war waxaynu aragnaa xataa lajna daa'ima liliftaa oo culimada sacuudiga ah qaar ka mid ah ayaa ku tegay oo lahaa ma diiri karno waxay leeyihin miskiinkii marka raashinka loo dhiibo ee uu ku yaro ururo waxaad arkaysaa isagoo baqaalada ama bakhaarka ula cararaya
dabeedna wuxuu leeyahay iga iibsada lacag baan rabaa boqolkiiba 50 bay ka tuurayaan halkii uu ahaa $1 oo kale $0.5 baa laga siisanaya marka isagiina wuu khasaaray dee wixii uu doonayayna ma wada helin marka lacag lagu siiyay in badan baaba ku tagay marka inaga waxaan dee chance ku haysanaa waxa iska badan dadkii u baahnaaba raashinka marka raashin baynu iskaga bixino sida bilaa muranka ah ee fadliga badan ah waqtigeeda sakadan la bixinayo waqtul jawaaz iyo waqtul fadila baa jira waqtiga fadliga badani waa subaxa ciida cidii aad la siinaysa la ballan u dhiib ama cidu soo wakiishay u dhiib waqtiga jaa'iska ahina waa labada cishe Ramadaan u dambeeya oo saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxay bixin jireen 2-3 cishe u dambeeyo ah maalmahan aynu marayno asxaabtuna waxa nabigu u ogolayn may sameyn jirin ridwaanullaahi calayhim waqtul istihbaab iyo waqtul jawaaz waqtiga fiican markaa waa subaxa ciida waqtiga maalinta ciida laftigeeda waa in la bixiyaa intaan loo bixin salaada ciida ka hor in la bixiyo way iyadii udxiyada ay soo cagsiya sakaat fidriga waxa la bixiyaa ciida intaan la tagin ka hor waana la quraacdaa sunnuhu waa caynka ciidul adxaana neefka waxa la qalaa marka laga soo noqdo salaada marka laga soo noqdo marka tartiibtaasay kala leeyihiin rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu ka waramayo zakaatu fidriga ayaa waxa uu leeyahay man adaaha qabla salaati fahiya zakatun maqbula wa man adaaha ba'da salaati fahiya sadaqatun min as-sadaqat qofka bixiya zakaatu fidriga intaan salaada la tagin waa saka la aqbalay qofka salaada kadib zakaat fidriga bixiyaana waa sadaqooyin kuunbay ka mid tahay macnaha kaalinteedii may dhicin xadiidkaasi waa xasan saa daraaddeed waa in lagu dadaalo in la bixiyo salaada ciidda ka hor salaada ciidda la sheegayaana waa intaanad adigu tukanin een ummaddu tukanin haddaad keligaa tukanaysa waa intaanad tukanin jamca ummaddu ay wada tukanaysa intaan la tukanin ka gaadhsii way dhacdaa dadku inay iska yara farxaan oo ciyaalka iyo dharkoodii waxa ay ku mashquulaan oo goordamuun ay shada ku xigtuuna yiraahdaan hadda sakaat fidriga soo mabaynaa bixin oo miyuu iska yaalay degam baa la yidhaahdaa waajibka kale ku yaalay salaada ciid sunnahay dharkan wanaagsan iyo waxaan la xidhanayaa iska farxad iyo iska sunnaha faralka quree ku yaalay waxa inaad sakada bixiso marka qof hawshiisii dayacay baad xoola seeg baad idan markaa waa inaad ilaashataa waajibka culimada qayb ka mid sida madhab shaafici oo kale waxay qabaan ilaa maalinka ciida in la iska bixin karo waxa si xaaraana maalinka ciida in la dhaafiyo maxaa xala hadii la dhaafiyayba waa faralo ma dhacee waa la soo qalaynaya maalinka 11aad iyo wixii ka dambeeya ayaa waa ittifaaq culimada islaamku waxay isla waafaqsan hadii xataa waqtiga ay dhaafto qofka dumadiisa wali saaranta waxa aad u muhiim ah hadiya jeer markuu qofku cid wakiisho cid uu wakiilan karaa oo miyigu ka soo hadlaya wuxuu oranayaa hebel baan soo wakiishay hebel igu dhiib marka hebelka waa inaad u dhiibto waqtigii munaasibka ahaa taasina aad bay muhiim u tahay ma jirto waxa aynu isticmaalnay la yiraahdo u gudoon hebel aan la soo wakiilanin oo miyiga meelaha iska jooga ayuu mid oranayaa hebel baan la doonayaa u gudbi u gudoon waa inuu soo wakiishaa haddaanu soo wakiilanin uma gudoomi karo wakiilka ma aha waa inuu adiga wakiil ka noqdaa oo cid gaarsiiya ama qof la soo wakiishay waa inaad u dhiibtaa hadii laakiin aad tiraahdo hebel u gudoon hebel baan la doonayaa halkeedii bay taalaa oo may bixin waan dhaqanaynu iska leenahay xataa dadka miyiga nin wadaado meel maraya wuxuu oranayaa intii aad siinaysay ana u gudoomay kaan gebigoodaba ana u gudoomay wadaadkan cidina may soo wakiilanin marka qofku ama ka bixinaya waa inuu wakiil ka noqdaa ama ka qaadanaya waa inuu wakiil ka noqdaa kii qaadanayay cid uu soo dirsadaa wakiilka telefoonkiina cid uu ku soo wakiilan kara hebel baan adaan ku soo wakiishay war hebel baa wakiiliga ama la taas hadda ugu dhow maadaama in casriga tiknoolajiyada marayno telefoonkaas dhib yar in la isku soo wakiisho marka cid la doonayso war cid soo wakiilana wixii waan ku siinayaa kadibna markuu wakiishaha la wareega meel kale ha dhigto aqalkaaga ha kamid ahaato halka ha u taalo goor dhowto gaariga waxa saaro
haddii laakiin ay dhacdo inaan wakiilkii bixinin wakiilka dembigu ma saare adigu wakiilkana waa saaran adigana uu ku saaran wakiilku wuxuu gabay waajib adiguna waajib baad gabtay marka dumadaadu bari noqon maysa markaad ogaatay inaan wakiilkii bixinin waa inaad bixisaa sakaat fidrigi jimciyadaha ama hay'adaha samafalka sakada loo dhiibana waxay wakiil ka yihiin qofkii bixinayay wakiil ka yihiin marka iyaguna waa inay ku xisaabtamaan cidii ay u qaadayeen inay gaarsiiyaan su'aalaha waxa kamid ah waa su'aasha afartanaade sakaatu fidriga ma waxa lagu qaybinayaa la wada gaarsiinaya 8 qole aayadu ay sheegtay suuratu tawba la siinayay sakada xoolaha culimada qayb kamid isaasay qabaan qaarna waxay leeyihiin maadaama nabigu ducmatan lil masaakiin masaakiinta ayay u tahay raashin masaakiintuna ku koobnaato dabcan wax badanba ma aha way iska koobanta fuqarada iyo masaakiinta ayaaba maalmaha la kala tagaya fuqarada iyo masaakiintu waxa fiican in la doorto kuwa wanaagsan ee aan u isticmaalaynin balwadaha iyo meel laga shakiyo ama ilaahay caabudaya subxaanahu wa ta'ala walaa yaakul dacaamaka illa taqi nabigu wuxuu xadiidka ku yiri raashinkaagana ha cuno qof ilaahay ka cabsanaya qofna waxaan uu qaatay wuxuu u kaashanaya khayr qofna shar buu kaashanaya marka hadiya jeer hadii aad ninka ka shakido intuu iibsaday inuu siisanayo jaadkii iyo sigaarkii lagu ibtileeyay xaaskiisa iyo ciyaalkiisa si yuu ku qaxweyn inuu meelaha ka xaraashine kolku ku yimaado qof sakadii doonaya aanad garanaynin inuu qani yahay inuu faqiir yahay daahirkiisu baad iska rumaysan miyaad baahan tahay oo sakadu way kugu baxaysaa hadduu yiraahdo iska si muslimna run sheeg muslimna uga qaaday bay Soomaalidu waxba ha dhaarin markhaatiyaalna u doonine war sakadu meey kugu baxaysaa saasun baad ku siin saasun buu weydiin jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam sakada xoolaha iyo tan midna laguma bixin kara mashaariicda khayriga ah sida masaajidada oo kale iyo wixii la mid ah sakadan iyada dhowr qof inta iska ururiyaan qof kaliya way siin karaan qof kaliya intuu iska bixiyana laba qof uu siin karaa labada siyoodba way ku banaan tahay miskiinkii la siiyay sakaat fidriga hadday ka badato deesto iskaga sii bixin oo mesela 10 qof ayaa la siiyay sakaat fidrigoodii raashinka maanta iyo caawa ku filna waa 3 qof ama 4 qof raashinkood deeqa ka bixiya dadka kale oo mas'uulka ka yahay isaga laftiisii baa qani ku noqdayba waxay culimadu isla waafaqsan sida horeba aan u soo sheegay inaanad ku bixinaynin sakaat fidrigo aanad siinay dadka biilkooda waajibka kugu yahay waa ubadkaaga iyo ooridaada iyo aabba iyo hooyo iyo awoow ayeeyo dadka ku dhalay ama aad sii dhashay adiga laba doonay isla markaana kalaynu siinay ka kalena waynu macnaa in waxaynu siinay masaariifti sakadii xoolahana waynu ugu darayna sakaat fidrigiina waynu ugu darayna waxa lama rabo waxa la rabaa mid masaariifta aynu siinayna midna sakada aynu siinayna midna sadaqada sunnaha guriyo badan oo kala duwan inuu dhaqaalihi galaaba la rabaa kay la yakuna dawlatan bayna al-aghniyaa minkum ba ilaahay ku cileeyay subhanahu wa ta'ala sakada ma la naqlin karaa oo meel kale ma la geyn karaa hadii baahi jirto dad u baahan baa miyiga jooga qaar qaraabo baa jooga marka halka joogtana wax ku bixi halka kale ee durugsana baahida badan ka jirtana ku bixi way iska dhacdaaba marka dadkeena dabada cid ay siiyaan baynaanay jirin oo dadku iska wada haystaan wixii ay cuni lahaayeen iyo waxay cabbi lahaayeen gaabkaas uu daboolan yahay marka intii halkan wadanka u soo diraan baynu raashin ku iibin masaakiinta aynu siin qaraabadii kale ee aan inta aan soo sheegay ahayn waa la siin karaa walaalaha edooyinka habaryaraha kuwaas oo dhan waa siin karaysaa sakada iyada sakaat fidriga sakadan iyada ma banaana dadka aan muslimiinta ahayn in la siiyo dadkan imika dawarsanaya qaar baa laga yaabaa inay gaala yihiin soo ma dhacdo oo meelahan ka yimaada oo dadka aan muslimiinta ahayn ka tirsan marka qof gaala sakadan iyada lama siiyo waxa gafafka kamida sakadan iyada sakaat fidriga wax ceebaysan inaad bixiso wax ceebaysan maxaynu uga jeedaa waxa looga jeedaa wax ceebaysan in dadku wixii uu cunayo waxaan ahayn aad ku tisto afdheertii Mareykanku soo waariday cadcadayda qaxoontiga la siinay Soomaalida arabakhida cad ayuu soo miisaya rasuulay sakaat fidri baan ku bixinay adigu ma cuntaa adigu haddii reerkaaga la siiyo
إلهي وحول من أوسط ما تطعمون أهليكم أهلكينا وحسيسان كالأحدحاتك أيالي كفارقودك كبحية سكذا النوى لم بركا وحي أنا أدقي ريركا قلتونا عونين ودك بلغة شعلين مساكين تهكو عامين منعوني كران عيدنا كيف سنميس مروا البنا إلهي وحول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وناقا إلهي كدون إيسان مقار إيسان جيرا وحا جعشهين وحكب حسان سكذا حولها وحا في عن بحي نافك إرمان نافك دليا نافك شلس كواساب أن لقو قبلهين اسكبحي أو كردي لعقت وحا وناكسن بحي راشين كان إساقا قيمها بدانا لجعلي هاي بحي إمكا كويبا لقو جعليها بريس با لقد بريد إيا بهال باستلا إلا دادكن ودنك بحي لوكال كود استعمالي ما يانا ما أي سو سارييني oo haruurkii iyo arabakhidii iyo halka waxa uu yaala digirtii iyo waxyaabaha dadku iyo dumarkii iyo caruurtii waxa la jeclaysiiyay waxa kiimikal kale ama mawaadka xaafidka ah marka dadku qol haduu ku baxay jecel yihiin kuwaas la siinay caana booraha wala jecel yahay caruurta cabta timirtana wala jecel yahay marka kuwa la jecel yahay baan ku bixin doonaa su'aali sheekhu weydiinayay markuu soo ururiyay kuwa ka daba yimid dadku aad inoo weydiinayaan waxa kamid ah سكات فدرجة عد ما الله وكيلان كرا بعضك أبضنا وسؤالها كبضنايد وان شاعي نقف وصا وكيلان كرا سي هوش ويراد لكن وكيل كوان ولا وريجا سؤال شكل وحيا هاي مال كلام الجين كرا هي كبضنايد يدنا سؤالها تانا وين كتجوابني أصل كوحة وين هالكتجوكتين لو بحيو ومساكين تاكو إيه جيسة كلها جوكتات سيس داد مال كلام جيسة باهيد وبضن تهينا ama qaraabadu joogaana dib ma laha su'aalaha waxa ku badnayd iyadana telefoon ma lagu gudoomi karaa maya gudoon marka la yiraahdo macnihiisu waa maxay qabdi baa la yiraahdaa carabiga qabdiguna waa qaadid marka ki aad wada hadasheena kuuri ii dhig waan ka gudoomay miyuu ka qaaday kaamu qaadinde telefoon baa ku wada hadashee macluumaadna waad siisay laakiin de muu qaaday قادد بالروا وكيل قادها صوص ما يستو سؤالها كم إذا هيد سؤالها وحى كشري مركا الله صور وريا كبضنا يجونا ضد بكلة شوقة أو عد مصروف تاه عائلة ده قوة الشيء كوي كدلائي تونا أنا هين أو ضد كأنه هذه الشيء كوريها يقعد جو بدين نحلا جاي بينات أدو أفر قفته هاي أفر كلنا كلة شوقة كاتت كايجا سكات فدرجود الله جمالها haddaad adigoo qalbigooda wanaajinayo oo de maartay saare moral jabin aad ka bixisana kaagi iyo kadiya ka bixisay ehelkooda ma siin karaa ku jirta su'aasha waad siin kartaa ehelkoodii iyo iyaga toona sakaat fidrigooda laguma lahayn marka kaagi baad siin kartaa ki iyaga aad ka bixisayna sadaqa sunnaabu haaye waad siin kartaa waxa una la siin karayn qofka biilkiisa kugu waajibabayn marka dadkan kula jooga hadii aanu biilkoodu waajib kugu ahayn aad u ihsaan sameynayso oo sakaat fidriga ka bixinayso reerahooda waad siin kartaa intaasaynu ku soo koobi doonaa insha Allah ahkaamtii sakaat fidriga waxaan filayaa inteedii badnayd inaynu ka jawaabnay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inagu anfaco ciidana nabadina u gaarsiiyo amalka dhamaantiina inaga aqbalo sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam 10 kabritana wuu jiraa ciidaynu ka hadii ahkaamteeda insha Allah يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان